isugu keenay horta go'aamadu waa sidaas garaadku akhriyay la gaadhay isimada SSC Khaatuma ay gaadheen waa saa weeye waxa weeye inaan anagu qoraynin inaan laga qoran karin Garoowe suuqiisa maamulka hadda jira qoran karin hadduu qortana inaysan ahayn wax shaqaynaya mucaaradkuna inuusan qoran karinin muxaafidkuna inuusan qoran karinin guddiga labada xubnood ee naga jiraana inaanayna matelin cid iska sharixi karta oo ka tirsan SSC Khaatumo Puntland inaanay jirin horta go'aanku garaadku sidaa u akhriyay weeye sababta kaliftayna waa sabab aad garanaysaan waxaan rabnaa cid kastaaba inay noqotay khasab annaka iyo Puntland walaalaanu nahay laba maamulo walaalo siman baanu nahay waliba maamulkii naga weynaa inuu yahay oo na ilaashado oo na ilaaliyo baan u baahannahay aadna waan ugu mahad celinaynaa halgankii waxay cod kaga qaateen iyo waxay cudud kaga qaateen iyo waxay calaf kaga qaateen ba wax si sahlan lagu ilaawi kara maaha waxaanu madaxay noo saaran yihiin garabkoodaanu taagannahay anana garabka yagaanu ka filaynaa arrintan waxaa laga yaabaa dad badan inay yiraahdaan maxaa sababay waad ogeydeen waddankeena waa la haystay maamul inagoo kala ama qabiil inagoo kala aba haystay 15 sanadood bay haysteen way inagii dhiidhinay ka dhiidhinay way inagii ku dhimanay way inagii iska kicinay waa tii la shirado dadka SSC Khaatuma degana ay shireen waa kuwii go'aan soo saaray inay ku midaysan yihiin go'aan inay maamul inay yihiin waa kuwii soo saaray idinkuna waa idinkii taageeray magaca dagaalka way inagii ku galay arrintaas horta waa inoo horeysay waana isku waafaqsanay maanta markii doorashadii Puntland timid maamulkii inuu maamulnimadiisii maamulkii ahaado iyo inaanu xildhibaano soo xullo oo isqaban weyday cid kastaana waa garanaysaa arrintaas waa isqaban weyday waa isqaadan weyday waa kala badbaadinay markaa labadii maamul waxaan qaadanay go'aaminay inaan kala badbaadino kii yaraa hadda inoo dhashana aynu wada ilaashanno oo dadkeedu isugu yimaado ninkii shaqo rabaa u soo shaqo tago ninkii iska soo sharaxaya iska soo sharaxo doorashada dambe markay imanayso keenni horena halkiisii inoo ahaado inoo ilaashamo garab aanu anagu u noqonno iyaguna garab noo noqdaan doorashada hadda loo madlan yahayna haddii 49 dhiman lagu gelayo 17 haddii ay loo qaybinayo beelihii ka hadhay SSC labadaba waa u fasaxantii garabna waan idinku siinaynaa xeerkii iyo dastuurkii la qorayna quraanna ma ahayn xadiis nabina ma ahayn iminkaba waa tii la bedelayay arrintaas yaanay dhibaato keenin annagu waanu kala badbaadinay labadii maamul ninowna si xun ha u arkin maamulka Puntlandna waanu garab taaganahay hiil iyo hooba waanu la garab taaganahay waxaanuna ku dadaalayna inaanu abaalkaa celinno arrintaa nin kastoo waxaad u fahamtaa in labadii maamul in xildhibaan la soo xulo iyo in kaniisidiisii ahaado la isku wadi waayay hadalkani labadiibu kala badbaadinayaa sidaa u arag ninkii ka xumaanayowna adeer waxaanu ka leenahay raalli noqo in badan baa laga doodayey siyaasaa laga wadi waayey danteenu sidaa weeye laakiinse garab iyo gaashaan ayaynu isu nahay aad baa u mahadsantihi